السلام عليكم. waxaan ogaanay hadda fractionkii islufshadii iyo qaybintii waa soo dhameynay almost intii in fiican. hadda waxaan rabnaa inaan bilowno isku darkii iyo kala goyntii. waxaan ka bilaabaynaa additionku laba u qaybsamaa. kan waa like denominators. maxay yahay like denominators? maxaa laga wadaa like denominators? waxaa laga wadaa same base. same base maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa waxaan isku daraynaa oo kale, for example number 1 waxaan isku daraynaa 3/4 plus 1/4. xisaabta haddaan isku darno waa fiirinaynaa. waxaan leenahay xisaabta isku dar soo maaha baseku isku mid baa like denominators maya. yes 4 iyo 4. shaqadeenu waa iska fududahay. se u fududahay basekaan qaadanaynaa, hoostaan dhigaynaa, korna waa isku daraynaa, 4 buu noqonayaa. haddaan isku yareerayn karna sida haddoo kale 4 iyo 4 bay noqotay, waa isu yareeraynaynaayo waanu ka shaqaysanaynaa. reducing iyo waxa uu adiga soo dhameeyay waayahay. mid kale haddii ay ka waran ay sidaas diyaar u ahayn ay tahay 2 whole number 3/4 ka waran haday tahay plus oo mixed tahay oo mixed tahay like denominator na tahay ka tahay 1 whole number and 1 whole number halkaan ka bedelo meeshaan ka dhigo 1/4 aan ka dhigo 1/4 plus 1 whole number 1/4 ka waran arrintaas bay sidaas tahay oo tahay basekii waad fiirisay xisaabtii mixed ku jira tanna waa sidan way basically laakiin waa isku mid. shaqo badan inaad qabatid maaha, shida badan inaad martidna maaha sida waaga hore dhici jirto inaad kan ku dhufatid oo kaa ku dhirtid. waxaa la samayn jiray marka hore ama dadku sameeyaanba hadda qaar inta badan 4 2 ku dhufo 8 shaqaan loo baahnay meeqta 8 9 ku dar 9 9 4 u qayb kadib 4 ku dhufo 5 5 halka 6 halka 4 hal ku dhufo 4 ku dar 5 noocaas uga shaqayn jireen. waa tusi doonaa mar way dheertaa shida badan tahay. nooca ugu fudud waa sidan. waad fiirisay basekii soo isku mid maaha, ka iyo ka waa isku mid soo maaha. dhib male kuwana isku dar, labadan isku dar horta orgalayaasha ah 3 isku dhig. baseka mid ka soo qaado waa isku mid, labada dushaana isku dar maxay noqdeen hal iyo hal ku dar 1 ku dar waa 2. markaasi aan shaqo ka qabo haddaad reduce gareyn ka dhigo ceeriin tahay bisle halkaan oo kale waxay ujeedaa inay ceeriin tahay. marka maxaa leedahay 3 whole number markaa yaraysid labad ku tusho oo qaybinaysa. haddaa fahamsanayn please revisionkii soo qaado. halkaa 2 qayb waa hal, halkaa 2 qaybina waa 2. fadlan yareynta haddaa fahamsanayn casharadii aan soo qaadano reducing fractionka ahaa soo dhamaystiro. haddii ka waran ay si kala tahay ay tahay haday tahay ka soo qaad inay tahay xisaabteedu ay si kala tahay oo tahay ka soo qaad inay tahay isla isku darkaas same base weeye weli, laakiin sidaana dhacday number 3 ah yaa waxaan ku darayaa maxaan sameeyaa 2 whole number 1/2 see yeelaya kaasoo dhan isku daray. dhimbale kan waa u sahlan yahay. halkan whole numberka waa ku yaalaa laakiin waxaan la socon fraction. dhimbale whole numberka qabanaysaa, whole numberkan kala ku daraysaa, int halfkan sidiisa oo haysanaysaa. immediately maxay noqonaysaa 5.5 bay noqonaysaa. hadday mixed yihiin labadaba ka sii fiican. marka baseka waayo basekii halkani waa iska eber base de base ma yaal waxa ma yaalaan halkan eber baaba taala eber loo qaybiyaa taala. marka waad ku daraysaa waxay noqonaysaa 5 bar. fakir adigu xisaabtu waa caqli. $3 baad haysatay, lama 3 shilin baad haysatay. dollarkan dadka madaxda $3 baad haysatay, $2 baa lagu daray $5 5 iyo bar baad haysataa. saaka $2 2 shilin iyo bar ama $2 bar baa haysatay, 3 baa lagu dhiyo 5 iyo bar. waa iska garan ka dhaaba. caqligu waa inuu shaqeeyaa by the way. xisaabta caqliga kama weyna. mid kale aan ku darno 4 aan dhahno markaan xoogaa aan dheerayna aan dhahno 2 whole number 1/3 plus 3 whole number 1/3 plus 2/3. okay tan waa sahal. waxaan samaynaynaa sidii oo kale. waxaan leenahay waa fiirinaynaa war horta isku mid baa yes waa isku mid kulli waa isku mid haye. dee marka hoostana waxaan samaynaynaa mid nooga soo qaad horta hoos shidadeed waayahay waa ka soo qaadana 3ga inoo qor hoos waa qoran hoos warkeed waa inaga dhamaaday. oo numberadana isku darno waa kan 1 oo numberka kale waa kan 2 oo numberka kale meesha ma yaalaan ogow eber bataale. marka waxa ma yaalaan halkaas labadan kuwan isku darayna 2 3 ku dar maxay noqonaysaa 5 oo numberadu maxay isku noqonayaan 5 5 hadday noqdeen whole numberadu
horeyna maxaa noqonaya dusha sare waxaa noqonaya 1 iyo 2 ilaa 2 ku dar dusha sare markaas ku dardarna maxay noqonayaa wuxuu noqonayaa 1 iyo 2 iyo 3 4 buu noqday 4 haddaba halkaan rabay ujeedada kalaha halkan xisaabtan ma qurux badna waayo ma la jecel haddaad mar xisaabta kore badan tahay waa inaad mix u bedeshaa si u bedelaysaa inta kaliya ka shaqeey inta kaliya soo shaqeynaysaa 4 waxaan u qaybinaynaa 3 waa iska taqaani xarfaan waa ta ahaydeen waa ta dhigi jirteen 4 bal sidii aan ku dayo 4 nin 4 qof ayaa waxa qaybsatay ama sidii aan ku wada horto 4 taa waxa u qaybinaysaa 3 hal u si 3 hal bay noqotay waxay noqotay hal whole number 1/3 waxa weeyaan $4 baa meesha tiilay 3 qof bay ahaayeen midkiiba $1 baa lagu dhajiyay midkii $1 hadii la siiyay $1 baa u soo haray saddexdooda waa intaas markaan sheekadu waa sahlan tahay waxaan samaynaynaa whole numberkaan isku daraynaa kaliya 5 kan aan ka soo tagnay iyo 1 kaas iyo intaasaan isku daraynaa jawaabtu waxay noqonaysaa 5 whole number 1/6 whole number 6 whole because whole number baa noo soo dhashay logay 6 whole number 1/, waxay noqonaysaa 6 whole number 1/3 halkaasay taas ku egtahay marka aan koobo xisaabtan la yiraahdo like denominator waa shaqo la'aan almost badan wax badan lagu dirin marka waxa weeyaan waxaad qabanaysaa waa isku daraysaa waxa kaliya iska ilaalinaysaa waxa weeyaan marka isku dartartid adoon warwar marka isku dartid base isku dartid halkaas oo kale iska ilaalinaysaa inaad u rogtid mix inaad u rogtid baad waa inaad mix u rogtaa intaas aad mix u rogaysaa kana waa ku daraysaa halkaas aad joojinaynaa taa waxaan ku xijinaynaa hadda tan ku xigta unlike denominators wabillahi tawfiiq assalamu alaykum.